مدن وزير لحسابتنكي maanta waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo aan idin kula sii dardaarmayo insha Allah billahi kariim sida ku cad dastuurka dawladda Puntland waxa waajiba ku dhaqanka miisaaniyadda mudane wasiir sida daraadeed waxaan ku farayaa adiga madaxda kalaba mar walba in la ilaaliyo ku dhaqanka miisaaniyadda dawladda Puntland sida uu ina faraya dhamaanteedba dastuurka dawladda Puntland mudane wasiir waxa kale oo mudanayaasha ka hadleen shilinka Soomaaliga waxaan ognahay in lacag ku dhow 6 milyan oo dollar oo dawladda Puntland ay leedahay uu yaala bangiga dhexe ee dawladda sida daraadeed waxaan ku talinaynaa in wacyigelin la sameeyo maadaama shacabkeena ku dhiban yihiin isticmaalka shilinka Soomaaliga si lacagtaasi ay u anfacdo dawladda iyo dalka culays badan oo wasaaradda maaliyadda ka haystana looga qaado in lagu dadaalo lacagtaas sidii loo dhaqan gelin lahaa inay dib u shaqeyso sidoo kale mudane wasiir mudanayaashu waxay ka hadleen oo fadhigii shalayna lagaga hadlay oo ay wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta lacag ay qaado degmada Garowe oo aan la marin habraaca cashuuraha dawladda maadaama tahay wasiirkii maaliyadda lacagtan danta guud oo ay sheegeen cadeeyeen shalayto wasaaradda hawlaha guud in golaha deegaanka degmada Garowe intay fadhiisteen soo saareen xeer ku soo saareen arrintaasna ay sharciga baalmarsan tahay mudane wasiir maadaama tahay wasiirkii maaliyadda cashuurna ay tahay cashuur ma jideyn karto dawladda hoose ee degmada Garowe in arrinta talaabo sharci aad ka qaado cidii ku kacdayna la marsiiyo ciqaabta ay mudayn dhinaca kale mudane wasiir waxa jirta cabasho ka timi hay'adda daryeelka bulshada waxaan dhawaan ay furi doonaan iskuul loo furayo dhagowlayaasha sida daraadeed waxay ka cabanayaan gunno iyo lacagyo yar oo ugu jira miisaaniyadda mudane wasiir waxaan codsanaynaa maadaama ay yihiin dad baahiyo gaar ah qaba in dhagowlayaasha arrintooda aad wax ka qabatid iskuulkoodina dhaqso u furayaan oo hay'adaas mudane wasiir laga caawiyo arrinta oo cabashadooda mudane wasiir maanta dardaarankaygi intaas ayuu ku eegyahay cid kastana sharciga ka weyn waan idinka mahadnaqayaa shaqada ballaaran iyo waajibaadka wanaagsan aad gudateen laakiin waa mas'uuliyad dhammaanteen baa ina wada saaran in lagu dhaqmo miisaaniyadda arrintaasina waa arrin dhammaanteenba aan isfarayno waa mahadsantiin mudane wasiir maanta intaasay inoogu eg tahay waa idin fasaxaynaa adiga iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda maaliyadda ku socda waxaan idinku hambaleynayaa wasaaradda maaliyaddu inay miisaan iyo culays ka timi halka wasaaradaha kale ama 2 ama 3 qof iyagoo ay imanayeen waxay muujisanaysaa tani baaxadda shaqada aad leedin aad qabanaysaan oo aadna ka qurux badan tihiin mas'uuliyiintii kale ee soo hor fadhiistay maanta waan idinku mahadnaqaynaa arrinta waa fasaxatiin wasiir